lacagtan la yiraahdo crypto waa lacag cusub oo hadda adduunyada ku soo kordhay waa lacagahaas badan gudoomiye ma aha dollarka caadiga ah warqadda ma dahabkii la yaqeenina ma waxa la yiraahdaa digital currencies la yiraahdo ama cumladaha raqmiga al-cumladaha raqmiga carabiga lagu yiraahdo lacagahaas badan gudoomiye caalamka hadda ku soo kordheen waxa looga maarmay taakooyinkii ay bangiyada ku hay jireen dadka lacagaha waaweyn haysta oo ah in markaad lacag bangi dhigatid aad isla markii ka heli karin saadarteeda waa lacagta hadda la rajaynayo in loo guuro adduunyada hadda ay u guurto mudan gudoomiye saddex qaabood ayaa lacag looga sameeyaa suuqaas midda koowaad waa investment qofka inuu sameesto maalgelin oo lacagtiisa maal gashto dad badan hadda waxaa jira lacagaha ku haysta bangiyada halka dollar bangiga dhigato 10 sano kadib halka dollar ku yaal laakiin caalamku hadda wuxuu sameeyay investment inaad lacagtaada maal gashato lacaga waxaa jiro oo karibtada ah waxa ugu weyn oo hadda aabo ah ama hooyo ah lacagta la yiraahdo bitcoin 2012 waxay joogtay halka xabo ku dhawaad $1 ay joogtay halka bitcoin macnaha qofkii ka maal gashan lahaa ama soo iibsan lahaa meesha ugu yar aan ka soo qaadno $1 oo 1 xabo ah sanadkan halkii bitcoin wuxuu gaaray $70,000 uu gaaray halka bitcoin wuxuu gaaray $70,000 macnaheedu maxay ka dhigan tahay marka dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay lacagtaadii waa gelisay computerka waa isku laabtay waa ka jeesatay maanta 2024 ah waxa haysataa $70 milyan kunkii xabo oo halkii xabo 70,000 waa 70 milyan ma shaqeynin yani ma dhidin afar la saac computer ma dul fadhinin baawur ma sii saarneen ma soo saarneen suul meel ma saareen kaliya waa investment ina suuqa maal gashato mudan gudoomiye lacagahaas investmentiga ah meesha ugu yar hadda ka sheegnay waa $1 ninkii 10,000 gashan lahaa 700 milyan oo heli lahaa suuqaas marka maalin kasto saacad kasto sanad kasto wuxuu soo saaraa dad milyaneero soo saaraa oo aan u dadaalin inay milyaneero noqdaan lacagta meeshaas laga sameeyo mudan gudoomiye lagama sameyn karo apartmentiyo aad dhisatay wixii ka soo galo ma ka sameyn kartid lacagta meeshaas laga sameeyo kama sameyn kartid mushaar aad qaadatay wixii aad meel ka dhigtay kama sameyn kartid dad badan oo ka faa'iideystaa jiro ayagoo da'dooda yaraa waalidkooda lacag ka qaatay suuqaas maal gashtay markay 20 sano gaareen ay milyaneero yihiin mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh wajigaas koowaad waa wajiga investmentiga waa يعني waxyaalaha kale oo suuqa uu ku fiican yahay waxay tahay hadda bangi marka tagtay 10,000 isii marka dhahdid 100,000 haday kugu jirto 10,000 isii hadaa dhahdid 2 bil kadib isoo noqon kulay ma helaya macna laakiin saacad kasto iyo daqiiqad kasto ayaa waxaad la soo bixi kartaa ama lagu soo diri kartaa milyan iyo wax ka badan adigana aad diri kartaa lagu soo diri karaa waana diri kartaa macna wax ku celinaya ilaahay uun tamale kaliya waxa u baahan tahay internet waxa u baahan tahay computer ama telephone iyo waxa u baahan tahay lacagtaad maal gashanaysa kaliya mudan gudoomiye markaan investmentiga meeshaas ugu baxo wajiga labaad oo suuqan lagu faa'iideysto waxay tahay inuu qofka ka trade forex ka amal yani suuqa markuu kacana inuu gato markuu soo raqiisoobana iska iibiyo waxa laga yaabaa dadka qaarkood 10,000 20,000 hadba waxay haystaan inay suuqa geliyaan daily trader Allah subax inuu soo kaco qolkiisa jiifku ka soo kaca qolka loo ku dhigano computerkiisa bas uu tagaa sidoo u soo xiranaysa inuu nin shaqeyn rabo camal ah shaqana uma socdo computerku ka dhax shaqeyn rabo macna 10kiisa kun la galaa suuqa aqoon iyo xirfad ay ku dhisanta suuqaas waxay ku dhisantaa xisaabaad la yiraahdo algorithm ay ku dhisantaa ma aha gambling ma aha sida wanexbitko kale laba kooxda weyn ayaa markasta saadaalina inay badinayso meeqa dhacdo marka kooxda yar inay tunto kooxda weyn ay ka badiso gambling way taas macnaha waa bakhtiyaa nasiib tan laka bakhtiyaa nasiib ma waa aqoon ay ku dhisan tahay xirfado la isticmaalo way xirfadaas soo baranay youtube-da ku jiraan ayadoo ingiriis ayadoo carabi ah luqad kasta waa ka helay marka soo baratid suuxi waa soo fariisanay sessionka inuu furmaa fiirsanay New York London labadaas bangiga laga tareed garaya marka soo gashid suuqa marka aragtid aqoontaada ay ku tusto in la bay gareenay waa bay gareen adigna waa soo iibsanay macnaha waa soo iibsanay marka soo iibsato suuqi uu dhaqaaqa bangiyada caalamka iibsanayo tareenka socda dhinac ka raacay adoo $1 wadatay iyo wax ka yar faa'iidadaada markuu ku gaaro marka xaddi waa kala baxay waa iska iibinay farqiga marka faa'iidada waxay tahay intaad gelisay iyo inta uu kacay markii la kala jaro faa'iidada intaas waa
diiniyan xaraan ma aha tusaale ahaan baabuura ka soo iibsatay Dubai $5,000 ku soo iibsatay xamara keentay 5,000 ma joogay 10,000 laga siinaa markii la kala jaro marka faa'iidada meeshaas ka soo baxaysa waa faa'iidada adiga aan leedahay waa trade waaye waa ina ka yani albayc wa shiraa waa wajiga saddexaad mudan gudoomiye waa wajiga hadda kiiskan loo taagaya waa sarifaad qofka inuu ka sarifo lacagta waxaa jirto dad badan oo malaayiin haysto adduunyada jooga laakiin aan la safri karin aan soo qaadi karin oo xamar la imaan karin lacagta lama ogolo saa darteeda lacagta waa qabanay tusaale ahaan Dubai ayaa joogtaa 1 milyan haysataa lacagta waa qabanay dirham u bedelay dirham marka u bedeshid waxa geynay bangiyada oo USDT dan isticmaalo Binance ayaa jiro shirkadaha ugu waaweyn akoonkaaga ku shubanay waxa u baahan tahay kaliya in akoon furato farfaydna uu ku yahay oo KYC-gaaga la yaqaan intaas bas u baahan tahay lacagtaada waa la soo tagay marka inta la imaanay xamar diyaarada soo raacday maliyana telefoon ku wadata cid ku baaraysa male cid ku daba socota male cid ku rabtana male dawlad ku daba galeysana ma jirto haddaan transaction maanta 50 kuna sameeyo dawladii daba kacayso dhees 50 kan inta u wadi inta kaaga timid su'aalaas ku weydiinaysa ma jirto marka dad waxa jira marka Soomaaliya aad loo fahmay lacagtaas dad badan oo waxa jira ka ganacsado qofku wuxuu rabaa marka USDT oo ah halka USDT waa $1 u dhigma stable coin Allah ma dhaqaaqdo macnaha halka USDT oo $1 ah waxa laga yaabaa qofka inuu rabo inuu suuqa lacag la galo oo ku yiraahdo waxaan rabaa 100,000 USDT suuqa rabaa inaan galo ma helaya marka xamar uu jooga adaa ka saacidaysid 100,000 waalidkiisa ugu diray asiga lacagtu hay kaash ahaan bangigaaga caadiga salaam bank ama wuxuu kugu diraa Premier Bank lacagtaada caadiga USDT maxaa haysataa ayadoo caadi ah akoonkaaga kugu jirtaa saasay tahayna waxa saaranay lacag sarifaada oo $2 $100 $3 $4 faa'iidana waa haysataa lacagtaada originalkana waa haysataa marka waxaan rabaa in maxkamaddu saa u fahantay audience-ga meesha fadhiyo cryptocurrency waxa la yiraahdaa saas waa